بسم الله الرحمن الرحيم وسنترك اسكولي معايا مطشو ما عنده حين دين إني شرنا عشر خاصة وهذه آد مهم إن هو ما دام أردت الدين سمعت وهذه آد يقول بين شروع ذا ما أنت شرع يدا يدا يتا أيام شرع تنا دا يدا تا يتا وح لو درا جوابها يا ستوس وأقول بدرا يولي موضوع يلد كل مركه دا يدا ama ta iyo te maxay soo kordhinayeen ayaa halkan taalo hadda anagu waxaynu u adeegsanaynaa in aynu ka dhigno shay lagu dhex jiro tusaale ahaan hodan haddii ku hodan gudaheeda shibis gudaheeda ruus gudihiisa afgooye gudaheeda afgooye ayaan deganahay oo kaleeto ama afgooye waa in da iyo de mise ta iyo te mid ka mid ah aad ku darta waayo wuxuu ku leeyahay haddii goobta uu yahay shaqalkeeda ugu dambeeyo a e o u waxaad ku daraysaa da haddii uu noqdo e iyo e o iyo u-na waxaad ku daraysaa de intaas mislaayna goob haddii shaqalkeeda ugu dambeeyo anigu ma rabo shibane shaqalkeeda haddii uu ugu dambeeyo a e o u waa da e e o u-na waa de laakiin shaqalka haddii uu noqdo shaqalka a iyo u iyo da iyo de samayn shaqalkii intaan la gaarinba shibanihii uu ku dhammaado xarafka ayaa waxaa noqday fa sa ta ka ja sha ha doob intaan uu noqdo kan ugu dambeeyo waxa ugu dambeeyo da iyo de kuwaan ma qaataan waxay qaataan ta iyo de ay qaataan tusaale ahaan fiiriya aan isla fahanno waxaa lagu hodan na inta ma ku jiraa maya oo hadduusan ba halkan ku jirin waa da iyo de laakiin haddii uu halkan ku jiro shaqalka waxaan rabaa shibanaha ugu dambeeyo waa da iyo de shaqalka ka dambeeyana waad kasii fiirinaysaa haddii uu noqdo intaan waa da haddii uu noqdo afarta horena waa de hadda waxaan leeyahay hodan na halkan kuma jiro a ayaa ka dambeeya a waa kaas waxaan ku daraa da aan ku daraa waxaan leeyahay hodan da tusaale ahaan waxaan leeyahay hodan da oo turyor waxaan deganahay hodan hadda waxaan ku daray hodan da shibis ayaan u imaanayaa waxaan leeyahay shibis hadda waa goob caadi ah waxaan leeyahay goobta shibis ah shibis sa miyaha sa halkan ku jira sa waa kaas hadduu ku jiro waa ta iyo te waa shaqalka ka dambeeyana waa fiirinaysaa i miyaha i waa kana i leh waa te markaas shibis te ruus xarafka ugu dambeeyo waa siin halkan ku jira hadduu halkan ku jiro waa ta iyo te hadduu halkan ku jirin waa da iyo de marka waxaan leeyahay ruus sa waa kana a ku dar ruusta afgooye ee ugu dhamaaday ee halkan kuma jiro waa da iyo de ee waa ta marka afgooye gudaheeda kaxda da a ugu dhamaaday halkan kuma jiro waa da iyo de waa kaas marka ade waa kaas da ayuu qaana kaxda da taleex ha ugu dhamaaday halkan ku jira ha waa kaas ha-ada maxaa ka dambeeya ee a ka dambeyso haddii ee ka dambeyso waa ee waa tasa waa te markaas taleex te ta aynu u tusaalo badsano kismaayo umana waxaan leeyahay kismaayo oo ayuu ku dhamaada oo halkan kuma jiro oo waa kaas waa da kismaayo gudaheeda f waxa waaye guri
waxaan leeyahay guriga gudihiisaan leeyahay fv halkan kuma jiro markaas waa da iyo de ayaa ka dambeysa waa de markaas fd office siin halkan ku jira siinka maadaama halkan ku jiro waa ta iyo te marka ma ta aan qaadanaa mise waxaan qaadanaa te waxaan fiirinayaa shaqalka ugu dambe waa i leh dhibic wuxuu qaadanaa te uu qaataa office te xafiiska gudihiisa sinif waxa waaye galaaska mise fasalka waxaan leeyahay fasalka gudihiisaan leeyahay waxaan leeyahay sinif fahmiya waatana sinif waatana waxaa ka dambeysa aa ka dambeysa waa kan sinifta haddii aan lahaan lahay dhibic aan siin lahay te aan siin lahay ooda waa qolka gudihiisa dheh ooda da waayo aan da ugu daray da waxaan ku daray a halkan kuma jiro waa da iyo de markaas shaqa ka dambeyna waan filayaa in sharciga da iyo deeda aad fahanteen tusaale ahaan turkiye maxaa ku dareysaa turkiye miyaha turkiye u dameyso markaas waa da haye istanbul laan halkan kuma jiro waxaa ka dambeysa hadday leedahay dhibic waa de haddaysan lahayn waa da hadda maadaama aysan lahayn dhibicda istanbul u dambeyso waa da izmir ra'da halkan kuma jiro waa da iyo de izmir ra'da maxaa ka dambeysa aa ka dambeysa haddii ay leedahay ida dhibic waa de haddaysan lahayn waa da marka sidaasaan filaya inaan u kala fahantaa macallin insha allahu tacaala